waa ciidamada qarsoon ee ururka hoggaanka u haya dalka Afghanistan. waa ciidamo si qaas ah loo tababaray loona dhammaystiray qalabyadii ay ku dagaalami lahaayeen. hogaamiyayaasha Taliban ayaa ku sheegay in cutubkan ay yihiin kuwa ugu awoodda badan dhammaan ciidamada Taliban. waxay sugaan ammaanka gudaha dalka iyo caasimadaba. waxay weeraro ba'an u geysteen ciidamadii ay la dagaalamayeen ee Mareykanka iyo gaashaanbuurta NATO. magacooda waxaa ku qarsan xigmad ay adag tahay qof walba inuu fahmo. Badri 313 waa magaca cutubkan khaaska ah ee ciidamada Taliban. ma qiyaasi kartaa daawada magacan macnihiisa? waxaa loogu magac daray dagaalkii Badr 313 waxay ka micno tahay tirada mujaahidiinta ka guuleystay mushrikiinta ee difaacayay diinteena Islaamka. dagaalkii Badr waxaa cutubkan khaaska ah la aasaasay sanadka markuu ahaa 2018 dhamaadka bishii November. waxaa lagu tababaray gudaha dalka Afghanistan iyagoo ay tababareen kooxda loo yaqaan Haqqani waa koox militari ah oo uu aasaasay Jalaaluddin al-Haqqani ahna mid ka mid ah kooxaha loogu cabsi badan yahay dalka Afghanistan. Haqqani waxay boos xoogan ku leeyihiin ururka Taliban iyo hoggaankooda sare. waxay leeyihiin ciidamo loo yaqaan Badri Army kuwaas oo u kala baxa guutooyin fara badan waxaana ka mid ah guutada Badri 313. cutubkan khaaska ah ee Badri 313 uma labistaan si la mid ah ciidamada kale ee Taliban. waxay u labisayeen sida ciidamo qaran oo kale. waxay sitaan hoobo kala duwan oo ay ka mid yihiin M4 iyo M16 kuwaas oo lagu sameeyo Mareykanka. sidoo kale waxay sitaan waxyaabo badan oo ay ka furteen ciidamadii Mareykanka waxaana ka mid ah wakiyaalaha loo isticmaalo goobaha mugdiga ama xilliyada habeenka ah, gawaarida noocyadooda kala duwan ee lagu dagaalamo, helikobtaro, qalabyada ka hortaga gantaalada iyo sidoo kale diyaaradaha dagaalka. ciidamadan ayaa lagu qiyaasaa inay tiradoodu gaarto ilaa 5,000 oo askari. waxay ka qayb galeen dagaalo badan aan soo koobi karin tan iyo markii la aasaasay waxaana ugu caansanaa dagaalkii ay ku qaadeen shirkadda amniga Ingiriiska ee G4S xarunteeda Kabul dhamaadka sanadkii 2018. sidoo kale guutadan waxay dagaalo badan la galeen ciidamadii Mareykanka ee dalkooda xukumayay iyo gaashaanbuurta NATO waxayna u geysteen khasaaro badan. kadib markii Mareykanka laga saaray dalka Afghanistan guutadii 313 waxay noqdeen kuwo ilaaliya goobta loo yaqaan ARG ahna goobta uu madaxweynaha ka xukumo dalka. sidoo kale cutubkan waxay sugaan ammaanka elboorka caasimadda Afghanistan ee Kabul iyo sidoo kale goobaha kale ee muhiimka ah. cutubkan ayaa caan ka noqday baraha bulshada waxayna hadalhayntooda isla soo taraysay kadib markii ay ururka Taliban ay qabsadeen dalka Afghanistan.